السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوينه ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka wasiirada madaxda jaamacadaha iyo guud ahaan ka soo qaybgalayaasha munaasabadan mar labaad waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. intaas dabadeed waxaa la igu yeeray inaan kelmad ka iraahdo munaasabadan ay caawa ku midoobayaan jaamacadda City Court oo jaamacadaheena dalka ka mid ah iyo jaamacadda Daffodil oo wadanka Bangladesh ku taala. marka waxaan ka mid ahay dadka shahaadada caawa la daahfurayo heerka labaad ama masterta ka diyaariyay jaamacaddan Daffodil ee jaamacadda City Court caawa la midoobayso. waxaan u malaynayaa kelmad kooban oo uu marag fura baan ka oran doonaa in jaamacaddaasi ay tahay jaamacad tayo leh oo tayadeedu aada u sarreyso. runtii waxay ka mid tahay jaamacadaha barefadka ah oo Bangladesh ku yaala kuwooda ugu qiimaha iyo macnaha badan. waxaan u malaynayaa rankiga waa jaamacadda labaad jaamacadaha barefadka ah iyo jaamacadda afraad guud ahaan jaamacadaha Bangladesh ku yaala saan filayo rankii ugu dameeyey. intaas waxaan ku darayaa marka la isku daro quality-ga waxbarashada aan ku ogahay jaamacaddaas Daffodil iyo firfircoonida iyo dadaalka ka muuqda bahweynta jaamacadda City Court labadaa marka la isku daro waxaan isleeyahay waxaa ka soo bixi doonaa dadaal ballaaran iyo miradhal fiican oo arday badan oo deegaanada Puntland jooga iyagoo guryahooda jooga oo safaro dhaadheer aan gelin kharashaad badan aysan ka bixin inay ka faa'iideysan doonaan. runtii programmada masterta uu Cabdixakiin hadda presentationka ku jeedinayay kulli waxaan isleeyahay waa kulliyadaha ugu muhiimsan ee ay tahay dadkeenu inay bartaan. marka awal caqabada jirtay waxay ahayd inaan wadanka laga helay oo safaro dhaadheer loo gelayay oo caqabado badan ay hortaagnaayeen laakiin caqabadaas City Court waxaan moodaa inay meesha ka banaysay oo ay fududeysay. insha Allah waxaan rajaynayaa marka in dad badan ay ka faa'iideysan doonaan programkaas ee guryahooda ugu yimid. waxaan kaloo rabaa inaan ku daro oo kusoo gabagabeynayaa Cabdixakiin waxaan malaynayaa inuu xusay jaamacaddan Daffodil waxay xiriir fiican leeyihiin jaamacado ku yaala Ingiriiska oo jaamacadaha adduunka ugu waaweyn. marka ardayga master ka diyaariya jaamacaddan waxaa u fudud isaga oo transcriptigii iyo maadooyinkii uu Daffodil ku qaatay loo tixgelinayo inuu sameeyo hal sano oo cilmi baaris ah kadibna uu shahaado ka helo mid ka mid ah jaamacadaha ugu muhiimsan waddanka Ingiriiska. tusaale ahaan jaamacadda Birmingham bay xiriir fiican leeyihiin. marka dad hadda programkaas raba inay ka faa'iideystaan waa ku jira. waxaan naloo tixgelinayaa uun transcriptigii iyo shahaadadii aan jaamacadda ka qaadanay keliya. waxaan samaynaynaa hal sano oo cilmi baarisa oo dheeriya saasna waxaan ku helaynaa shahaado Yurub ah. shahaadadaas macnaha Yurubtaana wax kale ma dheeraa tii hore laakiin waxay dheer tahay fursadaha iyo opportunitiska ku hareeraysan. waan dareemayo dhammaantiin inaad ka dheregsan tihiin qofku markuu jaamacadda Ingiriiska ku taala uu shahaado la aqoonsan yahay ka helo fursadaha agtiisa yaala ee tirada badan ee uu ka faa'iideysan karo. marka waan hambalyeynaya jaamacadda dhammaan guud ahaan dadka ay daawan doona iyo kuwa caawa meesha fadhiyana waxaan uga marag furayaa jaamacaddaas Daffodil International University ee jaamacaddu ay la midowday inay tahay jaamacad ku suntan waxbarasho tayo leh iyo maamul wanaag iyo nidaam daahfuran. وانا رجينا ان laga faa'iideysto. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.